بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ugu talagalnay markaas inaynu ku eegno dhacdooyinka ugu naxdinta badnaa ugu yaabka badnaa ee dhacay sanadka aynu soo dhaafnay 2008 January 2008 dalka Kenya waxa ka dhacay rabshado aad u xooggan ka oo ay ku dhinteen in ka badan 164 qof oo rayid ah oo inta badan markaas isku dilayeen doorashooyinka ka dhacay dalkaasi Kenya 8 January sidoo kale waxa ka dhacay dalka South Africa dukaan ku yaalo markaas Soomaali ay leedahay in lagu gubagabeeyay dukaankaasi 13 sidoo kale waxa ka dhacay dalka Soomaaliya dagaal aad u qaraar ka u dhaxay ciidamada markaas ka amar qaatay maamulka Puntland iyo kuwa markaas ka amar qaatay Soomaaliya la magac baxay 15 January waxa ka dhacay kulan aad u balaaran magaalada Asmara ka oo markaas Axmed Walad Cabdallah oo kulan kula yeeshay madaxda sarsare ururka isbahaysiga dib u xoreynta xilligaasi ah kuwa markaas ku cusub saaxadda siyaasadda 17 January ka dhacay dalka Britain bananbax aad u xooggan ka oo markaas looga soo horjeeday xasuuqa ciidamada Itoobiyaanka ay ka wadaan qaar ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya 24 January 2008 xukuumadda dalka China ayaa waxay dawladda kumeelgaarka Soomaaliya ugu deeqday lacag dhan $500,000 taa markaas xukuumadda China ugu talagaleen dadka ka barakacay magaalada Muqdisho in wax lagu qabto 1 February 2008 waxa magaalada Muqdisho lagu toogtay afhayeenka gobolka Banaadir Maxamed Muxyidiin 6 February goob ganacsi dalka South Africa ku yaala ayaa waxa lagu gubay laba wiil oo Soomaali markaas ku sugnaa dukaankooda 7 February waxa dalka Ethiopia ka dhacay kulan saddex geesood oo u dhaxay madaxweynaha Ismaaciil Cabdullaahi Yuusuf iyo Nuur Cabdi iyo madaxweynaha ismaamul goboleedka Puntland Cabdi Muuse ka oo markaas ugu hadlayeen ama ugu waramayeen batroolka ama macdanta laga soo saaray Puntland 9 February waxa saddex ka tirsan dhalinyaro markaas ka soo jeeda Puntland laga soo siiday xabsi ku yaala dalkaasi Kenya Yusuf Aadan Said Maxamuud Cabdullaahi Jaamac Xuseen Cabdullaahi Aadan 11 February jaalidaha ku sugan dalka Britain ayaa waxay soo gaarsiin cusbitaalka Daynile dhaqaale markaas ugu talagaleen dadkii ku waxyeelooday dagaaladii ugu dambeeyay ka dhaco dalka Soomaaliya 19 February bil qabaasan oo ciidamada dawladda kumeelgaar ka geysteen suuq weyn ee Bakaaraha ayaa waxay kaliftay inay halkaas ka dhacaan hanti aad u fara badan 22 sidoo kale dagaal gacan ka hadal oo ka dhacay madaxtooyada ka dhaxay madaxweyne Yuusuf iyo jarnaalka markaas wata ciidamada Itoobiyaanka lagu magacaabo Gabra isla February taariikhda Soomaaliya ayaa waxa lagu daaday xeebaha Laasqori iyo xeebta dheer ee markaas u dhaxaysa Soomaaliya iyo Yemen 25 February waxa magaalada Laascaano ku geeriyooday suldaan markaas ka tirsan salaadiinta halkaasi oo lagu magacaabo jiray Garaad Ismaaciil 5 Maarso xoogga al-shabaab ayaa waxay gab ahaan la wareegeen gacan ku inta gobolka Bakool Waajid taa inta badan ay gacanta ku hayeen ciidamada dawladda kumeelgaarka Soomaaliya isla Maarso qoysas Soomaaliyeed ayaa waxa xasuuq baan u geystay ciidamada shisheeye gaaraan kuwa Amisom oo duqeyn baan u geysteen qaar ka tirsan degmooyinka gobolka Banaadir ama reer dhan markaas ku baabiisay madaafiic ay soo tuureen ciidamadaasi 24 Maarso ciidamada Ethiopian ayaa waxay tageen magaalada Marko ka oo ahayd markii ugu horeysay tagaan markaas ciidamadaasi 12 July magaalada Muqdisho waxa lagu dilay madaxa hay'adda UNDP iyo ku-xigeenkiisa 21 bisha July 2008 odayaasha beelaha dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa waxay shir la qaateen ciidamada Ethiopian oo markaas laba maalmood magaalada Beledweyne markaas ku sugnaa taa oo dagaal u dhaxay ciidamadaasi iyo xoog ka soo horjeeda ka dhacay magaalada Beledweyne 24 magaalada Beledweyne waxa ka dhacay dagaal aad u xooggan ka oo dadka rayidka ku sugnaa halkaas ay ka wada barakaceen 30 July Maxamed Dheere ayaa xilka laga qaaday ayadoo dadka barakacayaasha ku sugan caalasha biyaha in waaxiga magaalada Muqdisho ay aad u soo dhaweeyeen xilka qaadista lagu sameeyay Maxamed Dheere 3 Agoosto qarax xooggan ayaa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho haweenka nadaafadda gobolka Banaadir ay markaas aad ugu xasuuqmeen ku dhawaad 23 qof oo rayid oo ka tirsan markaas haweenkaasi ayaa halkaas ku dhaawacmay halka 12 ka tirsan ay ku geeriyoodeen isla 3 Agoosto arday Soomaaliyeed oo saarnaa gawaarida lagu qaaday ardayda iskuulada lagu geeyo ayaa ciidamada dawladda kumeelgaarka waxay ku xasuuqeen ama tacshirad ay ku fureen gaarigaas ay halkaas ay ku baaba'een ama ay ku geeriyoodeen tira caruur oo aad u fara badan 12 Agoosto
ciidamada Itoobiyan ayaa waxay degeen ceelasha biyaha oo markaasi goob dadka ka barakacay magaalada Muqdisho ay u sii barakaceen ay dadka ku sugnaana barakac hor leh ka sii barakaceen halkaasi isla agoosto masaajid ku yaala magaalada Muqdisho lagu magacaabo Hidaaya ay ciidamada Itoobiyaanka waxay ku xasuuqeen tiro culimo diinka tabliiqa oo halkaasi ku sugnaa ayadoo in ka badan 20 ka tirsan culimo diinkaasna iyo ciidamada Itoobiyaanka halkaasi ku gowraceen 5 Oktoobar xoog islaamiyiinta markaasi gacanta ku dhigay magaalada Kismaayo amar waxay ku siiyeen diyaaradaha rayidka ah iyo kuwa hay'adaha in ay iska soo degi kareen magaalada Kismaayo isla 9 Oktoobar ciidamada Ugandheeska ayaa waxay si bareer u xasuuqeen tiradada rayida oo ay markaasi ku jireen caruurta darbajiifka oo ku sugan kiiloomitir 4 12 Oktoobar Dr. Umar Iman ay u magacaabeen isbahaysiga dib u xoreynta garabka Asmara in markaasi uu noqdo gudoomiyaha isbahaysiga dib u xoreynta 15 Oktoobar arday Soomaaliyeed ku sugan dalka Malaysia ayaa waxa ku geeriyooday halkaasi daadad waaweyn oo ka dhacay magaaladaasi 3 Oktoobar ciidamada Al-Shabaab ayaa waxay diideen garoonka weyn ee Aadan Cadde International Airport in ay ka soo degaan wax diyaarada 18 Oktoobar ciidamada dawladda kumeelgaarka Soomaaliya ayaa waxa ay ku direen wiil arday ah oo ku sugnaa magaalada Muqdisho 4 November oo ah maalintii ugu horeysay xoogga Al-Shabaab ay fal tacsiir ku fuliyaan mid ka tirsan xoogooda markaasi fal tacadiil lagu soo qabtay isla 4 waxa magaalada Beledweyne ka soo degay gudoomiyaha isbahaysiga dib u xoreynta dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed 19 November waxa dalka Masar ku geeriyooday Faarax Weli Cabdi Sindiko ah sportiga dalka Soomaaliya 25 November meydka wiil dhalinyaro Soomaali ayaa waxa la soo dhigay degmada Dharkeenley ka oo dadka deegaankan ay aqoonsan waayeen maadaama meydkaasi indhaha laga baxshay oo qaar ka tirsan jirkiisana tacadiyo loo geystay 26 November sidoo kale meydka haweeney caan ka ahayd suuqa Bakaaraha oo markaasi curyaaneed ayaa la soo dhigay xaafadda Albaraka 30 November ee 2008 waxa sarkuusta meesha loo yaqaano ay meel markaasi aad dadka ku sugan magaalada Muqdisho iyo Afgooye ay aad uga baqi jireen laga qaaday maleeshiyadii halkaas hore ugu sugnaan jirtay 2 December waxa magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay tiro 5 gawaarida ambulance loo yaqaano kaaw muddadii dawladda kumeelgaarka dhacday kadib aan lagu arkin magaalada Muqdisho 12 December xoogga Al-Shabaab ayaa waxay tacsiir ku rideen tiro rag markaasi lagu tuumay inay ku soo qabqabteen ayagoo markaasi gacanta kula jira falal xashiish kala iibin 16 December madaxweynihii hore dawladda kumeelgaarka ayaa waxa uu magacaabay gacmo dheer inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dawladda kumeelgaarka isla 24kiina gacmo dheer xilka ayuu iska casilay 29 December madaxweynihii hore dawladda kumeelgaarka Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa xilkii uu hayay dawladda kumeelgaarka iska casilay isagoo markaasina sheegay in dawladda kumeelgaarka Soomaaliya uusan noqon doonin in markaasi noqdo caqabad hor istaagan dawladda kumeelgaarka Soomaaliya nabadda iyo haatan ka wada dalka Soomaaliya isla magaalada Baydhabo uu markaasi ka duulay isagoo markaasina ka degay garoonka weyn ee magaalada Garowe halkaasina si diiran loogu soo dhaweeyay beesha caalamka ay aad u soo dhaweysay iscajilaadda madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf madaxweynihii hore dawladda kumeelgaarka Soomaaliya oo xilka isaga casilay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena gaarka dhageystayaal meel walba joogtaan aad ugu mahadsantii dhageysiga barnaamijkan waa bahda qaranimo oo idin leeyahay markaasi kullu aamin wa antum bikhair barnaamijkan waxa idin soo jeedinaya anigoo ah Maxamed Ibrahim Ayaalne dhamaantiin waxaan idin leenahay sanadkiis kale ku gaara bashbash iyo barwaaqo What
No